dalka Shiinaha ayaa kowdii bishii Oktoobar ee sanadkii 2019 waxaa lagu qabtay dowlad military ka ugu weynaa abid taas oo ka qayb ahayd dabaaldegga lagu xusayay 70 sano guuradii ka soo wareegatay aas-aaskii taliska xisbiga shuuciga ee dalkaasi maamula waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiinta dalkaasi ugu sareeya kumanaan askari diyaaradaha dagaalka taangiyada maraakiibta badda quusta kuwa xambaara diyaaradaha iyo saanad military oo ballaaran ayaa qayb ka ahayd dowladtuska xukuumadda Beijing waxay sheegtay inay soo bandhigtay hub badan oo lagu farsameeyay gudaha dalkaasi. haddaba muxuu yahay hubka Shiinaha uu ku soo bandhigay dowladtuska military maxay tahay sababta militariga Shiinaha uu yahay kan labaad ee ugu khatarta badan caalamka? intii aynan gudagelin muuqaalka fadlan ku soo biir channelkeena Bakaal Media. gaardakacyaalka militariga Shiinaha ayaa qayb ka ahaa dabaaldeggan oo ka dhacay fagaaraha la yiraahdo Tiananmen Square halka oo ay yimaadeen saraakiil sare oo ka tirsan dowladda iyo sidoo kale 188 sarkaal oo ka socda sirdoonada u qaabilsan safaaradaha caalamka ee ku yaala gudaha dalka Shiinaha kuwaasi oo kala metelaya 97 dal. afayeen u hadlay militariga Shiinaha iyo wasaaradda gaashaaniga ee dalkaasi waxa uu sheegay in ujeedka Shiinaha ee dowladtuska military uu sarahayn in Shiinuhu uu soo bandhigo cudud military balse waxa uu sheegay inay doonayaan in ay dowladtuskan ay ku muujiyaan si Shiinuhu uga qayb qaadan karo dadaalada nabadda ee caalamka. hase yeeshee dowladtuska military waxa uu muuqdaa mid dad badan ay la dhici doonin gaar ahaan cadawga Shiinaha ee reer galbeedka oo ay ku sheegeen dowladtuskaasi military inuu ahaa kii abid ugu xumaa ee ay mandiqadu aragto. wasaaradda gaashaaniga ee dalka Shiinaha waxay sheegtay in 15,000 oo askari oo ka kala socda qaybaha kala duwan ee militariga dalkaasi iyo 580 gawaarida gaashaamana ah iyo sidoo kale 160 diyaaradaha dagaalka ah ay ka qayb qaateen dowladtuska military. madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa waxa uu salaad sharaf ka qaatay ciidanka isaga oo saaran gaadiid qufulaan hase ahaatee madaxa banaanka ka haysaday hortiisana ay yaalay mikrofoono waxa uuna khudbad u jeediyay ciidamada isagoo ku dhiirigeliyay shaqada qaranka ay u hayaan waxaana baabuurkiisa oo socday uu xawaaro sare ku dhaafayay gaadiid jidka dhinacyadiisa yaala kuwa oo ay ku rakiban yihiin gantaalada qaarkood lagu sheegay inay qaaradaha ka tallaabi karaan. waana markii ugu horeysay oo dowladtus noocaan ah ay ka qayb qaataan in ka badan 8,000 oo ciidanka Shiinaha ah waxaana lagu sheegay inuu yahay mid ka mid ah dowladtusada military ee ugu ballaarnaa qarnigan. ciidanka Shiinaha waa mid ka mid ah kuwa ugu awoodda badan caalamka waxaana aad looga dhor sugayay hubka uu Shiinuhu ku soo bandhigay dowladtuska military. wasaaradda gaashaandhigga oo ka hadashay arrintan waxay sheegtay in gantaalo baabuur dagaal ah oo horey loo arag ay qayb ka ahaayeen dowladtuska waxaana gantaaladaasi lagu sheegay inay qayb ka ahaayeen kuwa qaadi karaya ama markaaba ay ku rakibnaayeen madaxyada qaada hubka nuclear-ka kuwa oo baaba'san u geysan kara cid kasta oo lagu weeraro. waxaana gantaalada ka mid ah noocii ugu dambeeyay ee gantaalada balaastikada ah oo isaga kala gooshi kala qaaradaha dunida kuwa oo lagu weerari karayo halkii la dooro. khubarada Shiinaha waxay sheegeen in hubkaasi lagu weerari karayo meel walba oo caalamka kamid ah ka oo lagu soo bandhigay iyagoo ay ku rakiban yihiin 10 madax oo hubka wax gumaado ah. waxaa kamid ah hubka la soo bandhigay gantaal kale oo la yiraahdo DF-17 oo xawaarihiisu aad u dheereeyo xambaari karaya nooc kamid ah hubka la yiraahdo hypersonic ka oo lamid ah hub uu hore u soo saaray Ruushka ee lagu magacaabo Afghan. gantaalkan ayaa Shiinaha waxa uu sheegay inuu isaga caabin karo gantaalada difaaca cirka. sidoo kale hubka la soo bandhigay waxaa kamid ah nooc cusub oo gantaalo ah kuwa oo lagu burburin karayo maraakiibta gujisyada badda iyo gantaalada ridada dheer ee cadawga ay ku soo tuuraan Shiinaha. sidoo kale saanada military ee Shiinuhu soo bandhigay waxaa kamid ah 2 nooc oo cusub oo diyaaradaha dagaalka ah oo mid kamid ah ay tahay diyaaradaha dunida ku cusub ee gafuurkeedu aadka u dheer yahay oo loo yaqaano supersonic sidoo kalena loo adeegsan karayo wax basaasid laguna bartilmaameedsan karo nooc kamid ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano DR-8. dhanka saanada badda ayaa qayb ka ah dowladtuska waxaana kamid ah markabka xambaara diyaaradaha miigta ah ee loo yaqaano Y-20. diyaaradahan oo ah nooc dunida ku cusub ayaa waxay awood u leeyihiin inay basaasaan kuwa weerarka ku soo ah Shiinaha. saanada kale ee cirka ee lagu soo bandhigay dowladtuska military ee Shiinaha ayaa waxaa kamid ah saanad ay ku qalbaysan yihiin ciidamada cirka ee Shiinaha waxaana kamid ah saanadaasi diyaarad kale oo la yiraahdo H-6N taa oo awood u leh inay hawada sare shidaal ay ku siiso diyaaradaha kale ee dagaalka ku jira sidoo kalena xambaari karta gantaalada balaastikada ah ee Shiinuhu uu adeegsan karayo marka uu dareemo in lagu soo qaado weerar dhanka nuclear-ka ah isaga oo kala jeeda argoosi dhanka militariga ah. Shiinuhu waxa uu sidoo kale dowladtuska military uu ku soo bandhigay hub casri ah oo ay ku sameeyeen gudaha dalkooda 10 sano ee la soo dhaafay. dalka Shiinaha waxa uu kamid yahay dalalka ugu awoodda iyo dhaqaalaha badan caalamka waxaana sanadihii dambe uu kordhiyay kharashka uu ku bixiyo gaashaandhigga. kordhinta kharashka Shiinaha uu ku bixiyo difaaca dalkaasi waxay ahayd mid ka yaabisay dalal badan
waxaana ay korortay tan iyo markii uu xilka qabtay madaxweyne Xi xilligaasi oo uu ku baaqay dib u habeen ballaaran uu ku samayn doono qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida ee Shiinaha oo ay qayb ka yihiin ciidamada cirka, dhulka, badda iyo bariga. 10 sano ee la soo dhaafay kharashka oo ku baxa difaaca dalkaasi ayaa kordhay 10% sanad waliba, waxaana haatan militariga dalkaasi ku baxa in ka badan 170 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Mareykanka ayaa ah kan ugu badan caalamka ee kharashka ugu badan ku bixiya difaaca, waxa uuna lacag dhan 670 bilyan oo dollarka Mareykanka ah uu ku bixiya difaaca, waxaana kaalinta saddexaad soo galaya Sacuudiga oo bixiya 83 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Dalka Shiinaha ayaa sidoo kale ah dalka ugu badan ee maalgelinta ku sameeya agabka hubka ciidanka ee qaaradda Aasiya, kuwa oo uu Shiinuhu u dhoofiyo dalalka kale ee caalamka, waxaana qayb ka ah sanadda uu soo saaro Shiinaha ee loo iibgeeyay caalamka maraakiibta dagaalka, diyaaradaha dagaalka ee ku caanka ah sumadda la yiraahdo Y, iyo sidoo kale gaadiidka gaashaaman oo ay qayb ka yihiin taangiga la yiraahdo Sunwin. Shiinaha ayaa mar walba sheegay inuu dhisayo awood militari oo la jaan qaadi karta dalalka ugu tunka weyn caalamka sida Mareykanka, Ruushka, Faransiiska iyo Ingiriiska. Dowladda Shiinuhu waxa in badan ay ku andacootay in dhisitaanka ciidamadeeda ay qayb ka tahay hanaanka ay doonayaan inay caalamka nabad ugu soo dabaalaan, sidoo kalena ay doonayaan inay isku dheelitiraan hanaanka awoodda ciidamada ee mandaqada. hase ahaatee waxaa loo arkaa in Shiinaha sare u qaadista militarigiisa uu ku doonayo inuu wax uga qabto xaaladaha cakiran ee handadaadaha kaga imanaya dhinacyada xuduudaha sida dowladda Hindiya oo muran dhinaca xadka ah uu kala dhaxeeyo Shiinaha, iyo sidoo kale badda koonfurta Shiinaha uu ka taagan yahay muran baahsan oo ay qayb ka yihiin Mareykanka ka oo dabada ka riixaya dalal badan oo Japan ay qayb ka tahay, kuwa oo muran badeed uu kala dhaxeeyo Shiinaha. Jasiirada ku yaala mandaqada la yiraahdo badda koonfurta Shiinaha ayaa Shiinuhu waxa uu sheeganayaa in si iskiya uu leeyahay, hase ahaatee madaxweynayaasha xiga ee Mareykanka ee Barack Obama, Donald Trump iyo madaxweynaha haatan jooga dalkaasi ee Joe Biden waxay ka biyadiideen sheegashada Shiinaha, iyadoo mid kasta oo ka mid ah madaxdaasi uu sanadba sanadka kasii dambeeya uu korinayo gaadiidka badda ee ciidamada Mareykanku ay adeegsadaan ee loo dirayo inay wax ka qabtaan handadaadaha Shiinuhu uu ka sameynayo baddaasi. sidoo kale mandaqadaha lagu muransan yahay ee Shiinuhu qaybta ka yahay waxaa kamid ah jasiiradda lagu magacaabo Taiwan, taa oo Shiinuhu uu sheeganayo inay qayb ka tahay dhulkiisa, hase ahaatee Mareykanka iyo reer galbeedku ay u aqoonsan yihiin inay tahay dal ka madax bannaan Shiinaha. Inkastoo qaramada midoobay aysan aqoonsanin, haddana Taiwan ayaa waxay leedahay ciidamo si aad ah loo qalabeeyay oo uu taageero Mareykanka, kuwa uu ku qalabeysan sanadda ugu casrisan ee ciidan. hase ahaatee Shiinaha ayaa dhawaanahan waxa waday in ciidamadiisa militariga ee badda iyo cirku ay ku soo sameeyaan faragelin ee hawada iyo badda ay leedahay jasiiradda, taasi oo Shiinuhu uu sheeganayo inay qayb ka tahay dhulkiisa, isagoo mar walba sheega in dadaalada ay doonayso inuu ku xoroodo ay tahay sharci darro oo ay ka dambeeyaan dalal uu ku tilmaamay inay mar walba ka soo horjeedaan siyaasadda la yiraahdo dhulka Shiinaha ee ballaaran.